ku-xigeenada bangiga adduunka oo u qaabilsan arrinta kobcinta khayraadka iyo tayada dadka human capital development waxaan la yiraahdo waxa halkan igu wehelinayay wasiirada kala duwan ee ka mid yihiin wasiirka waxbarashada maaliyadda caafimaadka arrimaha bulshada iyo shaqaalaha waan si qoto dheer isula jeexjeexnay geedi socodka Soomaaliya ay ku jirto inay kobciso dhaqaalaheeda laakiin kobcinta dhaqaalaha waxa ka horeeya in la kobciyo khayraadka dadka waa tayada wax soo saar aqooneed faham hab nololeed ee ummada ay leedahay ama shakhsi u leeyahay marka la isu geeyo waxay saameyn taban iyo mid togan ku leedahay kobca dhaqaalaha marka kulankaas ayaanu halkan kulahayn intaas ayaanu rabnaa One Stop Shop waa dukaan cusub oo laga furay magaalada Minneapolis suuqa weyn ee caanka Carmel waxaad ka heli kartaa cadaro barfuuno kareemo iyo dharka la xirtay dumarka sida baatiga iyo dharka kale ee ku xaroogan gabdhaha One Stop Shop wuxuu ku yaalaa magaalada Minneapolis suuqa weyn ee Carmel One Stop Shop inaanu bulshaweynta Soomaaliyeed la wadaagno kaasoo saameyn ku leh maalgelinta Soomaaliya ay ku sameynayso dhaqaalaha dawladda Soomaaliyeed halka ugu mudan ee ugu horeysana waa in dadka la maalgeliyo